أصحابت كسر دوادا رونشاك ميديا نتورك أصحابي ما أنتوا حنكها الله دولة الصومالية إني سو إبستي دياردهان اللي هذا F-17 fifth generation tender block 3 oo idin sheegay inay yihiin powerful aircrafts oo loogu talagalay difaaca iyo sahanka intaba Soomaaliya diyaaradaha runtii wax badan ay ka saacidi doonaan taas hore aan uga hadlay maanta waa guuliga gobonimo marka waxaan rabaa un kaliya hadda inaan ka hadlo wasiirka arrimaha dibadda Iran oo ka hadlay arrinta Soomaaliya maxaa uu sheegay runtii waxaa moodaa Iran inay aad uga xun tahay safiirka Israa'iil ee soo magacaabatay Somaliland waxaana moodaa Iran oo dhinac ah Shiinaha oo dhinac ah iyo Ruushka oo dhinac ah inay aad uga xun yihiin arrintaas dhanka kale Mareykanka iyo Ruush maaragtay muxuu ahaay Israa'iil inay ayagana runtii dhinac yihiin Turki waa dhinacaasna waxaa moodaa marka hadda Turki iyo Iran Turki iyo Israa'iil inay hadda ku tartamayaan magaalada Muqdisho dhanka kale Iran waxaa dhici karto sida la saadaalinayo inay ka aasto koox runtii Shiica guud ahaan dalka oo ay soo baxaan oo danaha iyo howlgallada Iran ay u fuliyaan ayaa dhici karta sida Xuutiyiinta Yemen runtii aad arrintaas loo saadaalinaa oo dad political analysts badan oo runtii ku takhasus arrimaha bariga dhexe oo Mareykan ah kuwa European ah oo macaadida think tank instituteska oo foreign policy mataqaanaa iyo East African mataqaanaa policyga falanqeeyo ayaa runtii aad u sharaxayo marka arrintaas waayahan intii laba isbuuc aad isu soo tareysay oo in Soomaaliya hadda ay ka soo baxaan koox runtii danaha Iran ka shaqeyso oo Xuutiyiin tacamal ah Yemen oo runtii Shiica in la arko mar dhow ay soo baxdo waa suurtagal probability-ga aad u badan tahay runtii marka taas marka waxay keenay loolankan juqraafi siyaasadeed ee geopolitical warkan socdo ayaad moodaa in xaaladda hadda ay ka sii dartay oo dagaalkii ama Middle East-gii bariga dhexe ayaa hadda waxaa moodaa in Soomaaliya oo runtii saameyn xoog leh oo ku yeelanayo marka dagaalkii waxaa moodaa in oo shift sameynayo oo dhankii ma aragtay muxuu ahay Soomaaliya hadda soo aaday oo Soomaaliya maadaama hadda ay diyaarado soo galeen dalka diyaaradda hadda aan idin sheegay F-35 Bayraktar mataqaanaa Thunder 5th generation block 3 waxaasoo dhan waxay soo jeediyeen Soomaaliya ku soo jeediyeen indhaha caalamka marka waxaa moodaa hadda quwadihii waaweynaay ayaa moodaa in hadda ay Soomaaliya ku loolamayaan iyadoo loolanka Soomaaliya oo ku saleysan yahay mid geopolitical strategy ah oo dhanka istiraatiijiyadda ah ama ha noqoto Indian Ocean Bab el-Mandeb maaragtaqaanaa ilaa xataa Red Sea mid ha noqoto mataqaanaa shidaalka iyo kheyraadka kalluunka difaacyada hawada saldhigyada military waxaasoo dhan runtii iyo aqoonsiga Israa'iil aqoonsada Somaliland marka waxay soo dedejisaa arrintaas in indhihii caalamka ay Soomaaliya soo fiiriyaan siyaabo kala duwan loo fiirsho kooxo ama dawladaha qaar ay tartan ama loolan adag u galayaan inay strategically soo galaan ayagoo ilaashanaya interestigooda qaar waxay u arkaan threat inay Soomaaliya ku tahay oo national mataqaanaa maaragtay muxuu ahay security threat inay ku tahay laga ay u arkaan oo amnigooda qaranka inaan khatar ku nahay ay u fasirteen oo sidaarteed waxay leeyihiin biyo intay isku soo gaarnaa la iska moosaa which means inaan mataqaanaa aan boost gareeno presence-geena iyo patrolkeena aan ku sameynayno Bab el-Mandeb iyo guud ahaan mataqaanaa Indian Ocean waa very important ay leeyihiin qaar waxay leeyihiin interest-geena geopolitical ahaan waa inaan regional impact aan sameynaa oo saameyn ku yeelanaa oo gobolkii annaga aan tagnaa oon xajisanaa ay leeyihiin qaar waxay leeyihiin waxaan u baahannahay inaan ku sameyno exploitation ama ka faa'iideysi inaan ku sameyno kheyraadka hadday noqon lahayd kalluun hadday noqon lahayd shidaal waxaasoo dhan marka waxaa runtii mar dhow inuu dhaco laga yaabaa clash of interest waxa la dhaho dana iska soo horjeeda oo dowladahaas ay ku diraraan runtii Soomaaliya
toos ayaga uma dirirayaan proxy ahaan inay isticmaalaan as a proxy war wakiil mataqaanaa dagaaleed inay isticmaalaan oo kooxo tiro badan ay soo baxaan dhici karto oo interest la iska hor yimaado oo dagaalkii Middle East-ga oo usoo guuraba Soomaaliya ayaa dhici karto maxaa yeelay wax kasta waa maanta possible adduunka waa laga tagay maanta in lagu dhaqmo sharci caalami ah iyo xeerar waa laga tagay runtii maanta waxa waa awood la isku isticmaalaa power ayaa la isku isticmaalaa ninkii awood leh ayay maanta maaragtay muxuu ahaay ayay runtii talada agtaal ayay taasay macnaheedu adduunka maanta oo isticmaalaa wax international law leeyahay ama sharci caalami meel la iska dhigay waa la duuduubay meel lagu tiiriyay adduunka maanta waxa uu isticmaalaa power way mataqaanaa marka laga hadlayo legal terms marka la fiirsho they don't care ayaga international law iyo sovereignty iyo territorial integrity waxa rabta dheh madax banaani dhuleed iyo mataqaanaa madax banaani hawo iyo mataqaanaa mid khayraad iyo kulli waa laga tagay maanta intaasoo nitocal mailan leeyahay markaa tiraahdeed wax fiirinaya mar waa la soo galaa baddaadii airspace-kaadii waxaa lagu sameynaya violation resource-gaadii la qaadanaya hadduu noqon lahay kalluun shidaal inhabit resources gas macdan waxa rabta dheh you name it strategic location-kaada oo maanta haddii loo arko inay tahay very important oo militarily lagu sameyn karo mataqaanaa impact lagu yeelan karo ama loo arko inay tahay muhiim u tahay difaac waa la soo galaa qasab waay haddii khayraad lagu arko waa lagu soo galaa haddii loo arko in violation lagu sameyn karo dhan kasta ha noqoto berri bad iyo hawo waa lagu sameynaa marka waxa ka saari karta kaliya waxay tahay ama Soomaaliya hadda ka saari karta kaliya waxa waaye inay yeelato alliance iyo xulufaysi oo kooxo mataqaanaa ay xiriir la samaysato oo dalalka qaar aan la noqon anaga alliance oo allies aan noqono xulufo si interestigeena aan maaragtay markasta u ilaashano adduunka maanta haddaadan ally aadan lahayn oo xulufo aadan lahayn waa very difficult inaad hesho difaac adag aad hesho maxaa yeelay waa laga tallaabay sharcigii xayndaabkii waa laga gudbay awood iyo muruq iyo power la isku isticmaalaa toos ay indhaha fartalaga gilaa marka taladaasaan Soomaaliya usoo jeedi lahay siyaasadeena foreign policy-ga maanta neutral ma noqon karto dhexdhexaad ma noqon karto waxaan u baahanahay inaan ku tiirsanaano block ama koox on allies aan samaysano alliance xulufaysi inaan ka tirsanahay ayaa la rabaa oo dhowr dawladood aan alliance la nahay oo dhaqaalaha mataqaanaa amniga siyaasadda kulli ka saacido oo markii fargelin lagu sameeyo intervention ku difaaci karo waa very important haddaadan ahayn duuduwa lagu qaadaa waa lagu durdurinaa waxaa noqonaya marka cooskii labada dibi ay ku durdurisay marka arintaas aadan runtii aan mataqaanaa uga digaa siyaasadda Soomaaliya maanta neutral ma noqon karto foreign policy-geenu ma noqon karo neutral waa inay noqotaa siyaasad dhinac u janjeerto dhinacaas ay u janjeerto waa inay interest ka helay iyo difaac waxaan dabcan adduunka interest based waa maanta dana ayaa la isku wataa waa inaan wax u fargareynaa anaga oo wax ogolaanaa oo dawladahaas aan wax ka axsinaa ayana ay difaac iyo iskaashi iyo dhan walba aan ka helnaa marka adduunka maanta taasoo ku dhisan yahay kuma dhisno adduun ixtiraam iyo shuruuc iyo xeerar iyo dacwooyin iyo maxkamado iyo mataqaanaa ma jirto waa laga gudbay waa lagu durdurinaa adoo u jeeda barqacad ayaa lagu dul maraa si xoog ah cid kala hadlay maaha saas lagu fiirna waa laga danaysanaa dawladihii kale oo isdheeysay sharci ay ku dhaqmayaan iyo maxkamadihii iyo difaac iyo dacwo aan furana cid deg jalaq ku siinaysa male dhagaha laga furaysanaa marka laakiin marka tahay wadan ku tiirsan buur xulufaysi ama koox ka tirsan oo mataqaanaa wadamo xulufo leh way adag tahay in lagu soo damaaciyo maxaa yeelay waxa la ogyahay inaad tahay wadan buur ku tiirsan oo waa laga gambanaa waa laga heebaysanaa waa laga xishoonaa taasaan Soomaaliya ku boorinaa marka aad iyo aad u mahadsantiin asxaabay inaan fiidiyowga dheeray mar rabo run sheek ku soo xirma subscribe gareeya inta muuqaalkan muuqaal ku xigay aan isku arki doono waxaan idin rajeynayaa khayr caafimaad bye bye